madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa xalay madaxtooyada Galmudug ku yeeshay kulan looga hadlayay khilaafka muddada dheer u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo maamuladaasi. dhinaca kale wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa maanta ku wajahan magaalada Dhuusamareeb. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkaas inoo soo koobay. madaxtooyada Galmudug ayaa xalay waxa kulan albaabada u xiran yahay ku yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynayaasha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. kulankan ayaa la tilmaamay in diiradda lagu saarayay sidii la iskaga dhaafi lahaa madmadowga u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland kaasi oo in muddo taagnaa. madaxda maamuladan ayaa dhowr jeer ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu ka shaqeynayo kala qoqobka dowladda iyo maamulada ka jira dalka, isla markaana goor waliba uu ku mashquulo faragelinta joogtada ah oo lagu hayo maamulada ka aragti duwan. wararka ayaa intaa ku daraya in madaxda ay isla meel dhigeen xalka gaaridda khilaafka jira, hase yeeshee taa beddelkeeda mowqif mid laga qaato doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo. madaxweyne Farmaajo ayaa tan iyo markii uu tagay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu waday kulamo gooni ah oo uu la qaadanayo madaxda maamul goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasi oo gogol xaar u ah shirka la filayo inuu ka qabsoomo magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. shirkaasi ayaa ujeedka ugu weyn ee loo qabanayo ayaa ah in aragti mid laga qaato doorashada guud ee dalka, amniga, dhaqaalaha iyo xalka gaaridda khilaafka jira. dhanka kale wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa maanta la filayaa in uu gaaro magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug si uu uga qayb galo shirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku yeelanayaan halkaasi. sidoo kale Dhuusamareeb ayaa waxaa gaaray shalay wafdi horudhac u ah duqa Muqdisho iyadoona halka ay ku sugnaayeen gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda iyo xogayaha guud ee gobolka Banaadir.